tan iyo qarnigii 15aad markaasi oo la rumaysan yahay inuu bilowday dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa markii ugu horeysay xabashada cagta soo dhigtay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho sanadii 2006 taasi oo urkutaalo ku reebtay intii markaasi arrintaasi xaadir u ahayd. Itoobiya ayaa Soomaaliya soo gashay iyadoo ku marmarsiyoonaysa la dagaalanka waxa ay ugu yeertay halistii ka soo fool lahayd dalka Soomaaliya. Dagaal culus oo dhex maray Soomaalidii taagta darnayd iyo Itoobiyaankii taangiga ku hubaysnaa ayaa waxa uu sababay inay dhintaan in ka badan 30,000 oo qof, kuwaasi oo isugu jiray kuwii soo duulay, ciidamadii maxaakiimta iyo sidoo kaleete dad rayid ah. Walow Itoobiya sidii ay filaysay uusan noqon dagaalka oo ay iska caabin adag la kulantay, haddana waxaa xaqiiqo ah in inaga aan ugu badnayn khasaaraha sababtoo ah waxa uu dagaalka ka dhex socday gudaha dalkeena Soomaaliya. Balse ma jirin cid Soomaali ah oo aaminsanayd in Itoobiya ay wadanka Soomaaliya ka aargudan doonto wixii dhacay sanadii 1977 oo ahayd in militarigii Soomaaliya ay gudaha u galeen wadanka Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, 14 sano kadib ayaa maanta waxaa caddaatay in Itoobiya maskaxdeeda aysan ka soo gaarin go'aankii loogu duulay dalka Soomaaliya. Dukumiintiyo ay qortay xogayihii hore ee dalka Mareykanka u qaabilsanaa arrimaha Afrika, Janday Fraser, ayaa muujinaya in Itoobiya lagu qasbay inay ku duusho dalka Soomaaliya. Soo dhawow daawade, haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar si aynu u soo badino. Mahadsanid. Maalinimo Khamiis ah oo ay ku beegneyd bisha July 20 sanadii 2006 ayaa xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto dalka Itoobiya waxaa ka soo gudbay in ka badan 50,000 oo askarta Itoobiyaanka ah, kuwaasi oo wadanka Soomaaliya ka soo kala galay goobo kala duwan, iyagoo intooda badan markii dambe u ruqaansaday dhanka magaalada Baydhabo. Dhanka kale waxaa iyagana dagaal aanan laga fikirin natiijada ka dhalan karta ku dhawaaqay maxaakiimtii Islaamka ee uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed. 4 bilood oo ay ciidamada Itoobiyaanka isdiyaarinayeen iyo sidoo kaleete maxaakiimta oo iyagana ciidamo ku dabaabulayay dhanka Shabeellada Hoose kadib ayaa waxaa si rasmi ah u bilowday dagaalkii ay isla galeen ciidamadii maxaakiimta Islaamka iyo kuwii Itoobiyaanka ahaa ee ku gaashaanaa hubka casriga ah 20 Diseembar 2006. sidoo kale sheekadii kutura-kuteenka ahayd ee la isla dhex marayay ayaa dhalan rogtay muuqaalkii dhabta ahaa ee dagaalkaasi dhacay. waxa ayna ku andacoonayeen Mareykanka iyo dowladda Itoobiya in ciidamadii Itoobiyaanka ay codsatay dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee TFG-da ee uu hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Allah u naxariistee, taasi oo fadhigeedu uu ahaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Isla maalintaasi uu bilowday dagaalka, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Meles Zenawi ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada Itoobiyaanka lagu qasbay in ay dagaal ay ku difaacayaan jiritaanka qarannimadooda ay galaan. Ereygaasi oo qubarada inta badan ay u fasirteen in uu ula jeeday in Soomaaliya ay qayb ka tahay dalka Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, Meles Zenawi ayaa waxa uu yiri isagoo hadalkiisa sii wato, ma doonayno in aan Soomaaliya u dhisno dowlad, ujeedkayagana ma aha in aan arrimaha daaqiliga ah ee Soomaaliya gudaha u galno, laakiin danta iyo arrimahan haysta darteed ayaan u galnay. Maalmo fara badan oo ay socdeen dagaalo lagu hoobtay kadib, Itoobiyaankii oo ay la socdeen ciidamadii TFG-da ayaa soo taraaray safkii hore ee ciidamadii maxaakiimta ee dhanka Daynunay iyo sidoo kaleete dhankii difaaca bartamaha Soomaaliya. Ugu dambeyntiina waxaa u suurta gashay ciidamadii Itoobiyaanka ahaa inay gudaha u soo galaan caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho markii ugu horeysay taariikhda. Ciidamadii maxaakiimta ayaa waxa ay noqdeen kuwa kala carara iyo sidoo kaleete kuwa isu bedela muqaawamo. In ka badan 2 sano oo qub iyo qac la isku hayay kadib, Itoobiyaankii waxa ay dalka isaga baxeen Janaayo 2009. Haddaba 14 sano kadib ayaa waxa aan helnay dukumiintiyo caddaynaya in Mareykanka uu Itoobiya ku qasbay in ay weerarto dalka Soomaaliya. Dukumiintiyadaasi sirta ah oo ay soo bandhigtay shabakadda xogta xasaasiga ah lagu soo bandhigo ee WikiLeaks ayaa sheegaya in Itoobiya aysan wax niyad ah u haynin in ay la gasho dagaal dalka Soomaaliya, balse Mareykanka uu u ballan qaaday inuu siin doono dhaqaale fara badan iyo sidoo kaleete agab military oo ay uga adkaan karto wax walba oo kaga hor yimaado gudaha Soomaaliya.
madaxii arrimaha Afrika ee dalka Mareykanka Jendai Fraser ayaa hormuud u ahayd qorshaha lagu doonayay in lagu weeraro waddanka Soomaaliya, iyadoo ku andacoonaysay in Mareykanku uu walwal ka qabo ururada Islaamiga ah ee ka soo hana qaaday dalka Soomaaliya. Jendai Fraser ayaa ugu goodisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya in uu Mareykanka ka goosan doono Itoobiya dhaqaalaha taageerada ah ee la siiyo haddii uu Meles Zenawi diido in uu weerar ku qaado dalka Soomaaliya. Horaantii bishii July sanadii 2006 ayaa waxaa qadka taleefanka ku wada hadlay Meles Zenawi oo ahaa ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya iyo sidoo kaleete Jendai Fraser, iyagoo isla meel dhigay qaabkii lagu weerari lahaa waddanka Soomaaliya iyo sidoo kaleete dhaqaalihii ku bixi lahaa inta uu dagaalka socdo. 4 Diseembar 2006 Mareykanka waxa uu Itoobiya u soo diray taliyihii ciidamadii Mareykanka ee loo yaqaanay CENTCOM, General John Abizaid, kaasi oo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya shir albaabada ay u xiran yihiin kula qaatay ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya Meles Zenawi. Shirka ayaa dukumentiga uu sheegayaa in looga wada hadlay in 20 bisha Diseembar ee sanadkaasi uu bilowdo dagaalka, lagana bilaabo bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kaleete duleedka magaalada Baydhabo. Sida ay sheegtay shabakadda WikiLeaks, madaxdii dowladdii TFG-da waxba kalama aynan soconin arrimahani dhex marayay waddanka Mareykanka iyo sidoo kaleete ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, balse waxaa mar walba iyaga loo sheegayay kaliya in la difaaci doono oo ciidamo fara badan loo tababari doono. Dagaalkii ayaa sidii ku bilowday waxa uuna qaatay in ka badan sanad. Bartamihii 2008 ayaa Itoobiya waxa ay Mareykanka u sheegtay in uu dagaalka ka sii ballaartay sidii la filayay, loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan qorshihii hore ee la dejiyay wax laga bedelo. 16 bishii Diseembar isla sanadkaasi ayaa aqalka cad ee Mareykanka u soo sheegay dowladda Itoobiya inay dib uga baxdo Soomaaliya, laakiin markii ay ka baxeen Itoobiyaankii gudaha Soomaaliya ayaaba ay ugu sii dartay xaaladii Soomaaliya, oo waxaa ka dhashay dagaalkii Itoobiya ay ku soo qaaday dalka Soomaaliya ururo kaleeto oo xag jir ah oo ilaa maanta ay Soomaaliya la daalan dhacayso sidii ay ku xallin lahayd dhibaatooyinka ay maalin walba ka geysanayaan gudaha waddanka Soomaaliya. Dhanka kale, mar ay warbaahinta wax ka weydiisay Jendai Fraser arrintaasi ay shabakadda WikiLeaks soo bandhigtay, ayaa waxa ay tiri Jendai Fraser, inagu wax lug ah kuma aanan lahayn dagaalkaasi. Itoobiya iyada ayaa kaskeeda u gashay Soomaaliya, kaskeedana uga soo baxday. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii aynu uga hadlaynay in Itoobiya lagu qasbay in Soomaaliya ay gudaha u gasho. Xogtaana sida aad muuqaalka ku aragteen waxa aan ka helnay WikiLeaks oo soo bandhigtay dhammaan xogihii ay isweydaarsadeen labada dowladood ee kala ah Itoobiya iyo Mareykanka. Taniyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.